waxaanu ku jirnaana waa waqti fitan ah eeg ilaahay wuxuu isku soo aadiyey eeg ilaahay baan ku dhaariyay dhalinyaro aan ku baraarugno arrinkan aan ku baraarugno bishii barakaysneed ramadaan bishii cumriga waxaa ku jira waad garanaysaan waa maalin habeen la yiraahdo laylatul qadri ka khayr badan kun habeen allahu akbar waa laylatul qadri bisha ramadaan oo dambiyadii la dhaafayo ilaahay raxmad soo dejinayo oo uu dadka cadaabka ka xoreynayo bishan waa bishii la xirxiray jahannamo dhan waa la xiray albaabadeedii shayaatiintii silsilada lagu xiray albaabadii khayrka jannada sideedeedii albaab waa la furay bishan bishii waxa way shaqada bishii waxa way xooga in la dhididaa la rabaa maalinkiina la soo naado xumaan oo dhan la iska ilaaliyo habeenkii ilaahay yaa in loo dhafro in la istaago la tukado taraawiixdii sunooyinkii quraan ooyay dad ayaa imaan doona buu yiri aamini doona igana jecel wax walba maalkooda caruurtooda wax walba iga jecel ayaa imaan doona anaga ayuu noo xiis nabiga sallallahu alayhi wa sallam mar walba khayrka iyo wanaaga iyo wadada wanaagsan iyo jannada ayuu nala jeclaa uu noo bishaareynaya qaasatan gabdhaha ayuu u bishaareynaya maanta nabiga sallallahu alayhi wa sallam muusan iloobin in uu u bishaareeyo xitaa qof walba wuxuu leeyahay nabiga yani xadiiskan waa xadiis cajiib ah marabna anaga in sideed albaab jannada maalinta qiyaamo midka aan rabna inaan ka galno janna la galaa ma aha sideed albaab meesha rabta ka galaysa nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa sidaan leh nabigana hadal walba ku hadlayo waxyi ayay ahayd wuxuu leeyahay haday gabadhu afar mid ay sameeyso waxaan u balan qaadayaa waxay tahay